iyadoo maalmo kooban ay naga xigaan bisha barakeysneed Ramadaan ayaa waxaa gudaha magaalada Abuur ee xarunta gobolka Togdheer ka muuqda raadad muujinaya diyaar garowga bisha Ramadaan suuqyada lagu iibiyo maciishada noocyadeeda kala duwan sida xabxablayaasha oo aanu saaka booqanay ayay xabxablayaashu nooga warbixiyeen sida uu socdo xabxabku iyo weliba doorka uu ka qaato nolosha qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Abuur ee xarunta gobolka Togdheer beeraha ku dhow magaalada Abuur ayaa inta badan laga soo guraa xabxabkani iyadoo maalintii gaadiid aad u tiro badan ay soo galaan gudaha magaaladaani waa kuwan qaar ka mid ah xabxablayaasha ku dhaqan magaalada Abuur ee xarunta gobolka Togdheer oo nooga warbixinaya sida uga ganacsadaan xabxabkani magacaaga ku bilaabay magacaaga waa Cabdi Marti waxa ka mid ah ganacsiga xabxabka marka waxa laga warbixisaa xilliga xabxabka iyo sida uu uga socdo xilliga waqtigiisu bilaabay waa roobka kaliis ugu baxay hadda ayanu soo baxay biyaha rabada waqtigeedu soo gaaray saacadan uu kala taagan waa saacadiis soo dhaanay marka sanadii hore ma ka duwan yahay sanadka القعد سنة إن القتش سنة كان حرب واحد صويب بيران أنا شو وريا يلا غطي marka mas'aalaha inta xilada ka hor uu soo kordhay dawladda waxaan ku sugnahay goobiyada ugu jira xabka magaalada Buuxo waxaan la tagay waqtiga ganacsatada marka ma bisha Ramadaan awgeed buu soo qatay isagoo waqtigiisa iska inta ugu badan si kastaba ha ahaatee sanadkani ayaan ahayn sidii sanadadii hore sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah xabxablayaasha waxaana suuqa laga dareemaya habeeshanaan ballaaran Axmed Hanad Guray Baqay wararka telefishinka caalamiga ee Bulsha TV magaalada Abuur ee xarunta gobolka Togdheer.